بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله قال إن شاء الله حربين إن لا وداعه خضرة ديار يدق لس دحق لنا سيمبل إن شاء الله محن بهالكاسي بعر بالدا ده من مالين يا بسمالي بعر أخضر سكواش بنوها قنا لكن بعر بون ورن كنا وذاك يسنسو إيجي هاي صدق مرة نوع عاسة ayaan insha Allah intaan dhexda ka dilaaciyo oo waxa ku dhex jira ka soo guro oo god sameeyo ayaan waxaan ku buuxin doonaa duqadaasi waxa weeyaan duqad nadiif ah bila subaga nus kiilo duqada insha Allah waan fuuq bixinaysa sambuuska kale aan fuuq bixinayaa ka bacdi waxaan ku dul dari doonaa khudradani oon yaryareynayo si sambuuska kale yaryareynayo waxa bad basasha cad waxa jirta basal aad u cad oo qalkeedu cad yahay iyo rotoona شاح ليجا أما بارو أما محن كده ذاي بس البارد واوين إن حد ما يرى كم سرعة شاح بربروني أختر كأ شاح بربروني عسان كأ يعني إن شاء الله كل حد دونا خضرة ده أنا كل حد دونا دقيقة يرى أختر كأ كلبرت بعد يرى كلبرت كيس إن شاء الله كل دونا ما كان اسكو فوق بهي خضرة ده إياه يدقدا أنا هذا تولدوش وحنا كقدر دونا مدها أوليفنتا iyo galey iyo cheese kabacdi karayna ku buuxin on biyo radiiran ku uuminay kabacdi ovenkan isku galinaa 10 to 15 minutes daawasho waan insha Allah ma sha Allah waduqadii iyo digirteeda akhtarkan isku fooq bixiyay duqad waxba kuma darin dufankeedii uun ba inkasta hadana ahayd hilib saafiya hadana dufankeedii uun ba shiilo dufankaasi u yaala gunta ka muuqda wax saliid kuma shiilaya maanta khudraddiina waatan aan isku soo googooyay mashiinka rabay googooyay kulle wixii khudrad ay tusay markii hore oo dhan macaltoontii baa ku jirta kamsartii baa ku jira xawaashka maanta waxa doontaan inuu ku darsado leena qaybtani xawaash badan ma baahna milixdana ka yareeyo insha Allah hadaba maqlaha iibir maqlaha ka bedelanaya khudradda ay ku badatay maqla weyn ma ku shuban insha Allah maqlihi ma ka bedeshay sababta khudradda ay ku badatay kana waan ku dul fuuq bixinayaa oon si in yar u yara jilco si sambuuska kale aan u sameeyo khudradda sambuuska saa loo sameeyo oo kale ayaan u sameeyaa insha Allah kabacdi squashka ama bocorkii ayaan waxaan ku sameynayaa biyo kulul baan ku dhex ridayaa in yar 5 minutes kabacdi nasaan u buuxinayaa darkii doonto insha Allah kana in 5 minutes aan isku yara fuuq bixinayaa si isku yara jilcaan wixii xawaashada rabtaan dusha kaga dar marka ku milixda ku dar wakaas ma sha Allah wata ay bislaatay khudradii bocorkiisan baan u goog waan ka dhex guray wax khudrad ku dhex jirtay 5 minutes waxaan ku yara daabiyeero diiran oo qandacaan ku dhex riday laakiin uu adag yahay wali yu ka jilcin duu ka jilco kala daadanaya hadhow toole waxaan intii aan dhexda ka gurinay waatan inta ma daadinayo bari baan soup ka sameynaa insha Allah goonaan taas kaga dhigay khudraddiina waatan ay bislaatay wax saliidan ku daray ma jirto iyadoo baa isku fuuqatay si sambuuska kale hadda waxaan sameynayaa bocorkii khudradda isku buuxinayaa markaan isku buuxiyo khudradda aan bocorka ku buuxin insha Allah waxaan ku buuxiyo dusha sare waxaan kaga darayaa cheese iyo oliven iyo oregano insha Allah markaan xabada squashka saa u buuxiyo ayaan dusha hadda wax ka sii saaraya haddaad ogtihiin sidani waa sida ugu fiican ilmaha yaryar lagu siin karo khudradda lagu jeclaysiin karo khudradda ku cuni karaan cheese tan isticmaalayana waxa weeyaan low fat weeyaan fatkeedu ma badna calcium badan way leedahay runtii laakiin fatkeedu aad ma sareeytan hadaba waxaan ku darsanayaa in yaro bahashi galey ah waxaasoo nafaqay carruurtaada ku cunaysaa insha Allah naftaadana ku cunaysaa haddaad baraatid khudradaha oo dhan waxaa doontaad ku buuxin kartaa waxa wixii la buuxin karo kale wax alla wixii ku buuxin karaa ayaad ku buuxsanaysaa
marka inta la isku dhalaaliso pizza kale u dhadhamaysa ama wada dhadhamaysa khudrado kale kabacdi markaan saa u buuxino waxaan ku darsanaynaa insha Allah in yaro oregano ama ku darsanaynaa waxa weeyaan soo sii dhadhanka pizza kale ama rooti la dubay oo kale idgoon raayaha wanaagsan oo u yeelaysa insha Allah kulligood wada buuxinaysan wada buuxinaya ما شاء الله وكان بحبوحي ميد والبا waxaa hadhown waxaan ku duwaynaa 170 ilaa iyo 15 midhidh hadduu si fiican isku ka dhexgeli waayo si fiican ilaa 20 midhidh dusha laakiin aluminium ka saarina si aynu u gubanin oo dusha sare uga gubanin way cheese haro dhalaalaysa waxa la rabaa inuu kani bocorku awna kala daadano biyo noqonin khudraduna waxa la rabaa inay si fiican isku dhex gasho marka 170 degreega 15 minutes bakayga ku filan laakiin aduu kulba yara dusha sarna aluminium ka saar sayna kaaga gubanin cheese ama se markaad ka soo saaraysidna waxaad samaynaysaa in yaro noqon bad inta ka qaadid aluminium sa u yara shaahid casaan oo yar noqoto ku daynaysaa haye waxa lagu cunayaa salad iyo sour cream runtii waa qada fudud lunch han bala cuni kara cashaan bala cuni kara kalluun bad ku bedeli kartaa digaaga hilibka duqadii jiir bad ku bedeli kartaa digaag bad ku bedeli kartaa digir bad ku bedeli kartaa waxa la xadoontid squashka waxaad ku bedeli kartaa tamaando barado barbaroni aubergine-ga ama bahalkan brinjaalka la yiraahdo waxa la xadoontaad buuxin kartaa muhiimada waxa weeye inaad khudrad aad cuntid cunto isku dheelitirnaa cuntid aan fat badan lahayn saliid lahayn carbohydrate badan lahayn haddana nafaqadeedu isku dhan tahay insha Allah I hope inaad ka heshaan khayr badan isku ognahay ilaa hadhow tolay inta ka bislaanaysa insha Allah ما شاء الله تبارك الله وكا خضرتي إيه بسلاتي ساس بين نقطي after 15 minutes ما شاء الله حلقوا عوني دانا عانا هاسبنو سميستي ويوغرت أما الروبكا أما سور كريم كس أنت بتقصوا بين كرتا وقدر دانا عليساتي وحن كلنا نسميه سلركا ما شاء الله لا يعني سميستي قف كي رب الرودي بكو عوني كرا كي ربا وحلو حضونو أقدقان كرا كي بريسكي باستا شعل بريسكي باستا كو عوني كرا سي الله ساتي عشاهاي أبيتيت ونكسن خير بالمسكوغنا هاي في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته